بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay taariikhda hijrigu tahay sagaalkii dilqacda 1441 oo ku beegan soddonkii bishii lixaad 2020 waxaan dib u bilaabaynaa barnaamijkii silsilatul huda wan-nuur ee horaan isaga kaashan jireen daarulxadiid iyo dacwa tawxiid oo haka dhaqdhaqaaqeydii dacwo hadda uu galay ayaan insha allahu tacaala dib u bilaabi doonaa. waxaa xusid mudan daaruxadiid waa hoyga aad ka heli kartaan duruusta sheekha oo dhan, khaasatan wixii luuqadda soomaaliga ku turjuman, muxaadaro iyo kutubba, qeybteeda website-ka, facebooka, youtube-keeda iyo telegramkaba. wixii duruusay hore kuu dhaafay halkaa iyada insha allahu tacaala dib ugu noqda. marka mashruuca oo silsilatul huda wan-nuur ayaan insha allahu tacaala maantaan dib u bilaabi doonaay. xalqadeedii koowaad ayaanan maanta qaban doonaa ilaahay idankiisa. sheekh xasan, walaalo badan iyo dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo meelo kala duwan joogayay ayaa in badan oo ka mid ihii ayaad ku soo wada salaamayaan, qaybo ka midana ay raacinayaan. sheekha ilaahay dartii baanu jecelnahay hana laga gaadhsiiyaay. marka koowaad sheekh ku soo dhowow si salaamaha aada u radiday. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka koowaad aad baan idin hamalnaqaaya dadaalka aada wadaan ee ku aadan faafinta dhambaalka diineed. marka xiga walaalaha isoo salaamay waxaan leeyahay salaamullahi calaykum wacalayna wacalaa cibaadillahi asaalixiin. intina jecel ilaaha jeclaado, intaanu jeclayna allaha soo hadiyeeyo, diinkana allaha ku toosiyo. dhammaan waxaan jeclahay dadka muslimiinta inay khayrka isku kaashadaan, diinkana isku kaalmaystaan, walaalo ilaahayna ahaadaan. allah idin barakeeyo. barnaamijkana waa ku dhowahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. sheekhana beejka oo su-aalaha lagu iclaamiyey daaruxadiis waxaa ku yimid su-aalo aada iyo aada u badan. midda labaad, su-aalo badan ayaa ku yimid. maanta keliya inuu sheekhu ka jawaabay kama gaari doono. ayadana insha allahu tacaala waxaanu inaga codsanaynaa inaad noo kaadisaan ood naga sugtaan intaan ka soo gudbin doonaa. maxaa yeelay waxaa nala qumanaatay inaan tartiibka ay su-aalaha beejka ugu yimaadeen su-aalba su-aasha say uga soo horeysay aan ku soconay. waxaa kaloo xusid mudan su-aalo badan ayaa macnahooda mugdi badan u galay. kuwa iyagaana insha allahu tacaala weebka ama daaruxadiis maamulkeeda insha allahu tacaala ninkii su-aashiisa meesha ka waayay dib ha ula xidhiidho. sheekhana asaa'ilka koobaad ama su-aasha ugu horeysa su-aasha koobaad waxay leedahay sheekh, waxaan ku weydiiyey dadka qaar ayaa marka ay sadaqo la baxayaan waxay dhahaan ha la ii duceeyo ama ha laygu duceeyo qof hebel. dadka noocaasa sadaqadaas ajri miyay ka helayaan mise ducadii ayay ku iibsadeen? bismillah. su-aasha jawaabteedu waxaa weeye, haddii ruuxu marka hore uu ilaahay dartii wax ola baxay oo niyadiisu ay aada sadaqaysatid, lacagtaan hantidaan ilaahay dartii inuu u bixiyo uu niyada ku hayay, kadibna niyada markuu niyeystay kadib haddana uu yidhahda raacsatid in lagugu duceeyo ruuxa dhiban ama kaa xanuunsan ama muraadkaad leedahay dhib ma laha. ajirna waa ka helayaa, sadaqadiisi waa u jirtaa, ajirna waa ka helayaa, in la duceeyna waa mudan yahay. laakiin hadduu qasadku ahaa marka horeba sadaqadaad u bixisid
halagu duceeyo ruuxi xanuunsanaa ama adiga halagu duceeyo ay ahayd markaa wuxuu niyado inbuu leeyahay ajirka heli maayo asalku waa sida aayadii xajka ku saabsanayd bay culum u daliishadaan qadiyadda ayada walaysa calaykum junaaxun in tabtaquu fadlan min rabbikum marka haddii asalku marka hore waa ilaahay dartaad u xajidid ood waajibka aad gudatid dana kale oon diinka ka hor imanaynin dhibna aan lahayn waa la raacsan karaa kadalika aljihaad baa lamida marka hore ilaahay dartii aad u jihaadid adoo ah dana qaniimadii niyada waad ku qaban kartaa hawla kale masaalix kale dana kale niyada waa la raacin karaa laakiin niyada asalka ee asaasiga marka hore waa inay noqoto ilaahay dartii wixii kalena ay tawaabici noqdaan tawaabicda marka asalka hore aan dumanaynin dhib ma laha gabagabo waxaa weeye ruuxaasi hadduu sadaqada ilaahay dartii oola baxay danta yarna uu raacsaday ajirkiisa waa leeyahay ducana muusan garanin ilaahay dartii buu u baxshay haddii laakiin qasad ku ahaa lagu duceeyo keliya marka iyada ah wuxuu niyado inbuu leeyahay wabilaahi towfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا سؤال اللباد waxay leedahay sheekh qofka markii la dhaarinayo ma ku filan tahay inuu yiraahdo waan dhaaranaya oo uusan kitaabka gacanta saarin mise waxa waajiba inuu kitaabka gacanta saaro bismillah jawaabtu waxa weeye masxafka lagu dhaarto shardi ma aha waajibna ma aha ومن المستحسن عند بعض العلم ما دام القرآن إلهي كلام كسيه دارتنا صفات كالله دارتي أسماء سداتها صفات سداتها ودارته صار بعض أهل العلم من السلف كالشافعي وغيره أي فتوى تأكيدا وتعظيما للحلف والقسم يراعي كتاب القرآن كالسماء دقنا غير وحي ودارنا يوين الله كرفوه كتاب الله كرفوه عن تسار ليلة إلهي magaciisa waa inaad ku dhaarato iyo sifaadkiisa kugu filan soomaali way taqaanaa xataa inaad tirada wallaahi baa kugu filan billaahi tallaahi kugu filan dhaartu waajibkaa waa inahaas laakiin kitaabku waa lagu xoojiyaa isagana waa lagu weyneynayaa ruuxa dhaaranayana waa lagu cabsiinayaa maslaxadaasaa ku jirta marka laakiin waajibna ma aha shardina ma aha xataa sunna ma aha waa shay iska bannaan oo laga tegi karo qaadiga markaa fadhiya ee wax dhaaranaya yaa go-aanka qaadanaya hadduu arko in uu ku xoojiyo uu samaynaya hadduusan u aragna waa iska daynaya marka jawaabtu sidaa waa iyadoo kooban wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekhana su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani anigoo musaafira ayaan dib u dhigay salaadee duhur casarkii ayaan soo gaadhay deegaankaygii sideen u tukanayaa salaadii duhur miyaan qasrinayaa mise waan dhammaystirayaa bismillaah jawaabtu waxaa weeye sida roon waa inuu dhammaystiro haddii duhurkii iyo casarkii uu dib u dhigay jamca taakhiir wixii la odhan jiray kadibna isagoon midna tukan uu gurigiisi tago iyo beledkiisii inuu dhammaystiraa wanaagsan waa masale khilaafiya fuqaadu isku maandhaafeen waxayna u laabanaysaa qaacidada aad taqaanina ahayd ma waqtul wujuubkaa la eegayaa mise cinda alficli baa la firinayaa waajibka xilliga la gudanaya waxaad ku sugantahay miyaa la eegayaa mise xilligii dimadaada uu waajibku qabtay baa la eegayaa haddii la eego xilligii dimadaada uu waajibka qabtay duhur wuxuu ku soo qabtay adoo musaafir ah casarna hadda wuxuu ku hayaa adoo muqiima musaafir ahay marka haddii kaa la eego waa la kala qaybino casarna waa la dhammaystiri duhurna asagoo gaaban baa la tukanaya haddii la milicsado waqtulficli cinda aladaana waxaa weeye oo hadda gurigaadi baad timid waad nagaatay musaafir ma tihid duhur iyo casarba waxay dhaceen fii waqti aliqaama marka walxadar marka waa la dhammaystiraya khuruuja min alkhilaaf labada salaadood ruuxa dhammaystiro afar tukado hana jamciyo wallahu aclam jazaak allahu khayr aljaza su-aasha afraad sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrin maalmahan aan ku wareeray waxaan ku noolahay wadamada reer galbeedka ciiddii fitriga waa la kala ciiday oo khilaaf baa dhacay inta badan maraakiista soomaalidu waxay ciideen maalinkii axadda
ayagoo ku cileeyey in ay sacuudiga ku xidhan yihiin oo aysan shaqo ku lahayn meel kasta oo bisha laga arko. maraakiista soomaalida ana sida aan ognahay ma raadiyaan bil oo waxii sacuudigu sheego ayay ku go-aan. arintaas diintu maxay ka qabtaa in khalad iyo saxba qofku uu daba taagnaado dowlad gaar ah iyadoo cilada laga dhigayo ikhtilaafulmadaalic baa jira. sacuudiga waxaa noogu jaan go-an salaadaha ayaa noogu jaan go-an oo isku madlac ma aha sacuudiga iyo Kenya iyo Soomaaliya. ikhtilaafulmadaalic se maxaa loola jeedaa? bismillaah, waa su'aal dheer oo sharax gooni u baahan kamana gaadho inta uu muhiimadda ka raacaya insha allahu tacaala. waxaa la yidhahda ikhtilaafulmadaalic waa wax iska dhib badan oo fuqahadu isku maandaafeen oo dib weeye. ikhtilaafku waa kala duwanaansho iyo kala duwani weeye, ay laba shay kala duwan yihiin. madaalicduna waa jamcu madlac, waxaan loo jeedaa ama madlic waxaa jiraadaba waxaa laga wadaa madaalic ashamsi walqamar. madaalic ashamsi walqamar wixii qoraxda isku mar usoo baxdana waa isku madlac, wixii kala duwanna waa kala madlac. waxaad sheegtaba qamarku iyo xidigu hataa kawaakibtu waa lamid. marka inahaasaa laga wadaa. xagga marka loo soo laabto soonka, soon in aragtiyan lagu soomo, aragtiyan lagu afuro masala ijmaaciya been ahlicilmi walmuslimiin, adilo badanna waa ku timid. dhibku wuxuu ka jiraa keliya maadaama muslimiinta ay baaheen oo meelo badan la kala joogo oo aan la wada joogin. dowlado fara badan oo 50 ah muslimiinta xataa ay wadamo gaala tageen oo la burburay. qaabkii loo soomi lahaa ee soonkooda loo midayn lahaa baa dhib badan ka jiraa. madaahib dhowra marka ilaa 5 lagu soo ururiyo, marka la isku celceliyo lagana badin karo ayaa meesha ku jira. sawaabkuna waxaa weeye sida roon hadday sugnaato meel walba adduunka aad ka joogtid, xilifka adduunka iyo dacaladiisa bari iyo galbeed, koonfur iyo waqooyi, meesha joogtaba jooge, hadday sugnaato ay kuu sugnaato ku qanacdo maanta inay ramadaan tahay oo aragti dad lagu kalsoon yahay lagu soo sheego, inaad soontaa wanaagsan. maxaa yeele waxyaabahan kale waa siyaasad kama marno, kala qayban muslimiin kama marno, khilaaf fiqi oo dhib badan kama marno. adugu marka meel walba ay sugnaato bishii maanta in laga arkay inaad ku soontaa kuwana wanaagsan. iyadoo sidaa tahay muslimiinta kale ha kula dagaalamin. waa masala khilaafiya, khilaaf saa'ir baa ku jira. barkeedu waa masaa'il ijtihaadi waliba daqiiq ah, culamo fahmi karaan. marka waxbana ha kusii xadgudbin adugu, laakiin sida kuu roon waxaa weeye intii maalin ramadaana uu ku dhaafi lahaa oy muslimiinta qaarkood arkeen uu ku seegi lahaa maalinka ayada soon, muslimiintana raac. waxba marka reer sacuudi iyo reer hebeli waxaa ku mashquulin. baryahan dambana waxaa soo kordhayba waagoor waxaan moodi jiray dowladaha qaarkood sida sacuudiga oo kale in waqti ay ku bixiyaan bisha aragtideeda oo ay rooyal aada u raadiyaan. laakiin waayahan dambe waxaa qalbiga kusoo kordhaya in sida turkiga oo kale ayaguna ay falag iyo xisaab iyo manaasil eegideeda ay ku soomaan oo rooyo badan aysan jirin. waxyaabaha soo kordhaya hase ahaatee sayduna ha noqotee muslimiintu meel walba bisha ka arkaan ay sugnaateen ku soontaa ku wanaagsan. iyadoo haddana marka la eego xagga sayniska la fiiriyo cilmi ma aha muslimiinta lagu qaybiyo aragtida, cilmi ma aha. maxaa yeelay wixii khadu duul wada dhacaa, waxayna waa dhihi jiray dhig iyo lool baa la odhan jiray. khuduudu duulku waxaa weeye waa 360 dhinaca dhacda oo sharqi ah iyo 180 qarbi ah weeye. khadu duul wixii dhacoo dhanba waxaa weeye waa isku aragti. dhanka galbeed wixii koo dhanna waa isku aragti. marka dad yaroo muslimiina iskhilaafaya. khuduudul cardna iyagu waa 180 bay kala yihiin. meesha kuwa dhulka ay kala yihiin 180 adduunka dhan dee masaafadiisa waxay dhahaan 360. waa iska khuduud wahmiyo oo wax lagu xisaabsado oo qolyahan ay wax ku xisaabsadaan. khadka Greenwich ingiriiska lagu salbeysgareeyey macno badan kuma sii xidhno. muslimna hadda wuxuu fahmi karo caamo xukun lagu xikara ma ahe
waxaa wanaagsan maalinkii ay sugnaato ogaato in bishii la arkay kun aad ku qanacdo ku soo wadaadaha aad sheegteen ee sacuudi wax noogu xidhan yidhina waa hawl siyaasadeed hawl diineed ma aha wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekhana su-aasha shanaad saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh qolyooyin baa waxay furteen kambani qof walba oo qof ku soo daray lacag 350 ah ayuu ku leeyahay haddii qofka adigu aad ku soo dartay uu qof kale ku soo daro kambanigii lacag 150 ah ayaad ku leedahay mar kasta oo dadku sii bataana lacagtu way sii badanaysaa marka shareecadu maxay ka qabtaa kambaniyada noocaasa bismillah masalo dhib badan oo casrigan aada looga murmo warkeeduna batay wax yar oo uu fahmi karo ruuxa muslimku baan u sheegaya insha allahu tacaala caamayga weliba kambaniyada aada u fara badan ee kala duwan noocyo badan le china ka yimaada yurub ka yimaada galbeed ka yimaada iyo maraykankan ujeeda afrikana hadda aada si lixaad looga socda khulaasadoodu waxaa weeye laba shardi hadday ka badbaadaan qiil baa loo helayaa labada shardi waa laba shardi iyada u gooni ah kambaniyaasha u gooni ah wixii ay la wadaageen mucaamalaadka kale kama hadlayo mucaamalaadka waxay la wadaageen shay inuusan riba ku jirin oo maadada laga shaqaynayo iyo muntijka la suuq geynayo uusan xaaraan ahayn iyo shuruudii beec uu lahaa iyo dalaal uu lahaa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wixii ayaga khuseeya kambaniyaashan loo yaqaana taswiiq الشبكي أو الهرمي وحاول شرطي كوبات وإن لو شرطين نروح عقصو بيري حبن كان نقونيا الزبون كان نقونيا أما عميل كون نقونيا كمبني وإن لو شرطين وحي يبسلو الاشتراط بالشراء يعني وحي صوص صارين أما الداودي أما وحي يبني بي شرطي كاغدي أن يبسل تكمبنيا شقاركود سلوه الديوان قريص إنا طي عضوي حدونا وحيات كنسطو عمر الوصل مع بونس لوسي شرط اللبات وإن مركا عند الاكتتاب ديوان جيد عند التسجيل أنا واحد فيه لقى قاضين وإن واحد على لقى قاضين هدي العقل لقى قاضي أما الله شرطين أنا وحكي يبسطو كمبري قاسي وحكا شقيني وحرام والربو ولي بشرطي وحوصي الدرن إن العقل لقى قاضي قوة كان من يروي كتشيرو لو كانوا شيلين بلوغو ديوان قال لي لو كن يشن بقول صدح كون هذا صدون دور أما 20 دور بلغا قاضي ربوي waxay ka dhigan tahay lacag muqrid baada taadiga yimid custom ka noqonaya cudwa noqonaya kambanigu muqtarad buu noqonaya waaga dambana waxa lagu leeyahay waxaan aad shaqaysato dad keentay waxa la isku qaadaraya kistaada iyo wax kale oo keentay marka waa qardi jar manfaca labada shardi wixii kambaniga ka badbaada dibkana aan qabin ولا شقين كراه لأنه حاول عمل با ربح عمل لو هلا عمل لو هلا وشقيسي كاستم باد كنتي معامل باد كنتي تبدا سو جيتين wax lagu sii waa loo ogolyahay sida dalaalka oo kale laakiin waa in laga qaadaynin waxa lagu diiwaan geliyo xubin laga dhigayo ama wax laga qaadaynin shardan oo sameeyay ka iibsato kambaniga Allah ka iibsato labada laga badbaado wixii kale waxay la wadaagayaan mucaamalada guud ee fiqiga la yaqaano wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤال اللحاد شيخنا سائل كان وحو ليهي وحا اي فرن قرون كبدا عقتها لغو عيارو ولو يقانو صلح وحا كو عيارا رقبس وحا انكي جارا ساعد قوان وقولنا مركا كو عياري سان كقاضو لعق $10 يوحي لمدك وكراء مركا لعقتها ايغسو قليسا قرون كان نوعاسا حلال مية ايتاي بسم الله بارتانك iyo mas'alada ku jirta kubada cagta iyo wixii la halmaalayo kolay iyo hadda ku sii mashquuli maayo su'aasha xadidan jawaabteedu marada baaraya hadii la yiraahdo marka waxaan leenahay hadii uu ka badbaado garoonkaadu xadgudub diinad ka badbaado oo meel isku laayo oo la isku qaawiyo oo cawraadka lagu muujiyo lagu xadgudbaysan ahayn kontroolayso salaadihiina aan la dayacaynin way ku banaantahay inaad ka shaqaysato way ku banaantahay salaadihii xilliga salaadaha la gaaro waa inaad meesha xidhayso oo dadka salaadaada amrayso
ويصاب نقنين إن صلاة لغته إلى حق سلوطه. ثانيا حتجذب حقوق الناس يديك ودي عرض ودي رب لفودنا وسنكر الماشي يعور القاوية حتجذب لبضع ضغطك إلى الزوج حتى شقيسته قيل بالله إلى يعني كوبرنان تاعي خلافات كليات كرة القدم كجري أو له إلى ما القدم وحي كيلو دون تاطقسي مشكول معين والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شات الضباط سائل كان شيخ وحوليه هاي waxaan rabay inaan sakaatul maal ku sadaqaysto masjid la dayactirayo oo ku yaala wadamadan reer galbeedka ama Yurub waxaan sheekha ka maqlay inay bannaan tahay in masaajidada wadamada gaalada ku yaalay lagu bixiyo sakaatul maalka laakiin masaajidada ku yaala wadamadan gaalada badankoodu waxay taageeraan in muslimiinta ay u codeeyaan baarlamaanka marka sheekh ma ku bixin karaa sakaatul maalkayga masjidkaas la dayactirayo laguna taageerayo doorashooyinka baarlamaanka in la galo. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. وسؤال جواب لربما لكن ما أردت وحاوي هدي أنت بحنيسة وقتاي أنا قادني ودادي ولوليني برلمانات هي طواغيت إلا تاغيرية مرادية كون بحين كرتي هدي لكن بيتك إله لو بسيو هانتيدو أي بيتك قليسو بيتك أصوه طاغوتنا مع مشركنا معها برلماننا معها دنبنا أصوه موسى قلن وبيت إلهي وأصل كيس الله دسي إلهي لو عابدو وإلهي لو وحيدو والدين كان لو برتو ومسلمين تو كسو هيدان وإلهي سبحانه وتعالى كوين إياه marka hantidu hadii malahaadu u badan yahay in masjidka ay galayso cidii doonaba ha joogto waad ku bixin kartaa ama wadaad wanaagsan ha joogo mid u ololay hawshaas sheegtay ha joogo waad ku bixin kartaa qasadkaas asaga ah waad ku dhiibi kartaa hadii laakiin dareen aad qabto inay ayagu isticmaalayaan iyo hawlahoodii kale horaanba in lagu bixiyo nimanka hanti ma banaanayn intaan xukunkoodaba loo gudbin hanti aan masjidkii galayno oo ruux ku tasarufayo oo meel kale aadayso iyadoon la eegin ba axadka jooga horaanba ma banaanayn haddii marka cudurka uu sii qabay oo ku darsada aad sheegtana kaba daran laakiin haddii hantidu iyo zakadu iyo xoolahaadii beydka ilaahay la gelinayo nin xun baa joogee waad ku bixin kartaa wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء. سؤال تطبعات سائل كان الشيخ حوليه هاي haddii imaamka ku tujinayay uu faasiq yahay ama ma doorashooyinka iyo dimuqraadiyada uu u ololeeyay ma ka goosan kartaa salaada. bismillah laba qaybood bay su-aashu ka kooban tahay qaybta koobaad ee ku saabsan imaamku hadduu faasiq yahay ma ku daba tukan karaa waa masalatu ijmaacin asalaatu khalfa alfaasiqi annaha laa tajib labada la isku khaldaa فاسق إن لقد بتكذا واجب معها وروح مسلم يكون واجبه ثم يجرته أن يصلي خلف فاسق مركتاوى مسألة إجماع عدم وجوب الصلاة خلف الإمام الفاسق ومسألة مقطوعة أيضا إجماع باكويبت وحلقا النقاش وجوازك ما بنانت هاي إن كنت بتكنا لقا النقاشة مركا هداد هليس إمام عدلي وأن فاسق أهين صوابك وحوي فاسق مدبة تنكرت هذا الإمام عدل هذا هين وفاسقاء دونك قبصدينا أنت تقول قاعد تكون رسول الله هيد إسكالتكو فاسقة السقعة جماعة يودا جركا كقيمة بدن قيب طلبات يكون صابسا midka maxay ahaydnin asagu u ororaya doorashada iyo maxay ahayd dimuqraadiyada ma ahayd su'aasha qaybta labaad dimuqraadiyiin nin doorasho u oleeya doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyada calmaaniga casrigeena asoo kaas lagu madowgan karo inaad ku daba tukato ma banaano maxay ninka asaga islaamnimadiisa ay fari ku jirtaa go'aankan kale ina wad ogtiin baan filahayaa marka ka asagu muslim ma aha midka asaga ay u ololeeya dimuqraadiyada iyo nidaamka calmaaniga asagoo fahansan xaqiiqada iyo waaqica ka muslim ma ah marka salaad kuma daba tukan kartid ama faasiqu warkiisa waa ku soo hormariyay wallahu a'lam.
جزاك الله خير الجزاء. وإياك. سؤال سغالات waxay leeyahay saailkani sheekhana aariyada ka imaata gabdhaha xubinka tarankooda xilligay gabadhu umusha ka baxdo haddii ay ka timaado aariyadaasi iyadoo salaad ku jirtaay salaadu ma ka buraysaa? بسم الله. هو مسألة خلافية بين الفقهاء مالكية حنفية هودا أما نفتا كإيمان سحبين كتران كاين يسوي ويسد جبين بيقبان وحن ويسد جبين صلاة ما جبين يمرك أيضا ما دام شرط ظهارة يهوز جليس حنابلة الشافعية وحيو بدنيهين إن أي جبين يسو والنفط حق ضمب كإيمان يسيو مد حق تران كإيمان يسحبين كتران كيسكم متكردين حنفية مالكية رأي وضعنا إلى الصحن حنفية مالك رأي إلى الصحن محيلي والريحية نيف غير معتادة وحي مركة غالبة أما معروف أما معتادة هابان حكمك لغو حداه شيئا نادر كان حكمك لما آذو ثانيا نيفتا أيضا نيفتا علوشة كإيمان يسي وحجبين يسو كلامه هو داعي لمتاي داعي إيو هيقاكو قبطي إيو إيه لمتاي علمي حديث كطبك أنا وحتاقري رأيك حنفية مالكية ده وحيليهين وهو كإيمان يسر حمك السكدي وحبن كان قديه سكا إيمان يسر شغل كلهين علول إيو مخارجتي أي نجاسات كإيمان عن شغل كلهين إيه صاريبا نوجدنا مركا على يتحال روح مسلم كسلاد يسو إيه صحيح بي أهيد ويسيدي سنة صحيحنا والله بي سبب كان هذا النفط كتمت فرجنا ومز خلاف باكوتشيرة الأصل مركا وحاول بقاء ما كان على ما كان أما استصحاب حال اجماع حلو رنجر بان هوس جينينا شك بانا كجرا انه يهي حدث با شك كجرا احداثنا قياس لو مسوغو وحو بانتا مساله توقيفيه وي سida نجاسات oo kale marka ra'yiga xanafiyada iyo maalikiyada ayaa ila xoog badan gabadhaasi marka nafta farjiga ka imanaysa waysa ma jabiso nijaasana ma aha salaad iyo waysana midna jabin mayso wallahu a'lam. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا طبناد شيخ سعيد كان وحولي هاي وحن هاي أرض برتا جامعة وحن برتا كلية القانون والشريعة كلية الشريعة والقانون وحن قانون الجنائي كو قاضني قفك زانيك حبسي وحنا هين إن أنا لقول عقابي كرينين سيدو كلا قانون الدستوري وحن كو قاضني in dumarku ay ka qayb qaadan karaan siyaasadda qaybaheeda kala duwan oo dhan diintu marka maxay ka qabtaa isku darka xeerarka caalamiga iyo diinta islaamka? bismillah waa su'aal xanuun badan aadna waxaan u dhibsanayaa in ruux muslima weydiiyaba oo yidhaahdo diinta maxay ka qabtaa hawsha ayada noocaasa oo u baahdo inuu axad kala weydiiyo waa arrin xanuun badan weeye oo ku tusaysa jahliga iyo aqoon darrada ka jirta bulshada dhexdeeda masaa'ilka marka la marayo diintu waxay ka qabtaa waa adoo isku daray nijaase iyo shay daahir ah waa adoo bakti iyo birsol isu keenay bakti iyo birsol waa adoo islaan iyo gaalnimo meel iskugu keenay diin islaan wax lala kulmin karo ama lagu dari kara midna ma jiraan howlaha uu sheegay saa'ilku kulligood waa gaalnimo diinka lagaga baxaayo waa tabdiil liaxkaamillaah waa tactiil lishariica waa baksi iyo bahadil iyo quursi kitaabka ilaahay diinkiisii waa bilid iyo bomboonin la bombooninayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu cambaareeyey ee uu duray ee gaalnimo iyo qurankeedii wixii la halmaala ahaa ما بنانو أحكام تلاهي إلا بدلو ما بنانو إنك قيب قادتو ما بنانو إلا بمبوني أما بوقي البحيو إنت أصور صوابا نيك الله أهل الدين الإسلام بنانو كي هاي أرضيها إنت الله ما شاء الله لقوانتو أحد كل واكنا لقوانيو روحون هابو قادو هوشا يضا هاتو كاب بحو أصورنا قال لما كاب بحيسا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا كوبي طبناد شيخ سائل كان وحولي هاي وحان جوغا ودمد أفريكا كميدا وحان كشقيا صرف كاللعقها marka dhibka meesha jiray waxa weeyaan sheekhana isku qiimo laguma qabto lacagta dollarka tusaale ahaan dollarka yaryarka ah
halka doolar, shanta doolar, 10ka doolar iyo 20ka doolar intaa yaryar waxaa lagu qabtaa qiimo ka hooseeya 100ka doolar. sababtuna waxa weeyaan dadku ma qaataan. marka sheekh waxaan weydiin rabaa ribo miyaa lacagtaasi? بسم الله وسؤال وربنا وهي معرضه وحاول دولار هذه دولار مصرف فيه لما كان بدين كار أنا 96 يمكن واجتش بيه ولا $10 ولا 8 ولا شيء كان هو بقول سكوت جاني لما أقول ده مدة يرهبوي مرة ده العادة سكوت متاعي سكوت وطن تاعي سكوت دولة تاعي قد أدعي ده مدة يغير يمدة دوين با لما كان بدين كاره taasi waa mas'alo loo yahay qaybta ku saabsan asaga doolarka laftirkiisi markii lacagta lagu sarifayo boqolkii marka lacagta ku sarifaysa in qiimo go'an laga siiyo midna anagu 10,000 iyo $200 way Kenya money laakiin markaan 50 wato ama aan 20 wato ama $10 ama $5 aan wato kale midna hadii la qiimihi boqolka waa laga soo kadhigaya ama waa laga badinaya iyadoo lacag lagu sarifay dib maramida ayada wada isku dhibaa jira laakiin dib malaha mar hadii lacag kale ay tahay wax lagu sarifayo dadkuna ay sheegeen dhibaato jirto lacagtan yarka aad uma socoto midka 96 ko kale dibka lagu sheega 2003 gaasna waxay ka sheegaan hawlo badan baa iska jira lacagaha isku jinsiga isku midka isku dawladda sayiduna ma noqotay in la kala badiyo riba ku jirta ama hadii Kenya money iyo riyal iyo dirham iyo waxa kale lagu sarifayo marka ayada wax dhiba malaha Allahu a'lam. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا لبي تبناد سائل كان الشيخ وحوليه أولياء المقتول واكوي مثلا الله شرطيا إن يسكو وافقان إن قصاص قاتان أما أيدي قاتان. بسم الله أولياء المقتول لما إطلاق ولا إطلاق إطلاق مسك اللغوي منه ومن شرعه مسك اللغوي وجعلك أهلك منك لدي قتيل كورن حسبتي سي قرابتي سي أهلك سورن يا أولياء نقوني وإن لم يكونوا ورثة إذا نقونهم با أما مثل فقه شرعي أولياء المقتول في الفقه حق الشرعيات وحاول مكلا مرة بحل مرة قصاص لمرة وأحد في روح الذي نحيلها ديادي سي مكتيس أحد في نحيلها حولي وتكتغ نحيلها يا أولياء المقتولة كواسا أولياء أيقاسا مركا حقوا لنا قصاصتان هي إني ديقاتان عفيان قصاص توحى الله شرطيا إن إسكو وافقا ورسدي ديكي سلهيد دحالكي سلهيد مكتي سلهيد ودن وإن إسكو وافقان إلا قصاص تمر حضي ورسوها هاي هل روح كمدها دولي أنو قصاص مرة وحان ربا ديو أما وابا عفييبا قصاص تويدا عيسى بالاتفاق قصاص تويدا عيسى هدي أي قصاص دعالي مركا ديون با واجبي سوكو كردية قادانيا ولي حقو دكو آدنا بالله سينيا كي عفيا سوكو ميشا وكبحيا عفيسكو مركو حوكينيا يدي إن لوريك وحي كينيسا قصاصتو إنا يدعالو قصاصتو إنا يدعالو وحي كلانا خيار با كفرا نينكا وحي سعافيين مرتي سوريا نينكا عفينيا ميشا وكبحايا مركا أولياء المقتول وورسالة قصاصتنا وحالو شرديا إن وصورنا بأسكو وافقا هذي مركا أيهن بالغين ووين وقان قاعدة أيها شرط هذي يريهن برنا أي ووين برنا يريهن ومسألة خلافية بين الفقهاء وإذا دبضنا السلف كانوا حيقبان أنت يركعه ولا قد تجاكوا وإن بالقوا مية وقصاص تفولين كرا آثار يا حديث بين الدليل شدان أنك الشافعين والأكتهين إلى ورصدا أيقان قاعده ويوحي عافيان أما أي قصاص وقلادان لما أوفين كرو دب بالله دقيا ولا تأجيل يا ونقبنا وإسكا مسألة خلافية المهم ورصده وإن سكر راعده قصاصته أولياء المقتول وحاول كده حلقة إسكالها والله أعلم. جزاك الله خير. وإياك. سؤال صديقية طبناد الشيخ زايل كان وحوليه يسونا marka quraanka la akhrinayo in la tajwiidiyay mawajiba masajirta adillatu sinaysay habkii ay saxaabadu quraanka ay u akhrin jireen.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بريان ذنبي ور سوق قري وركا أسجع سائل وسوق قري ورمر أصل لاين ومعنا لاين وقيمة لاين قرآن حروف تيسي قراءة سيد الواقع تيبا أديس تجويد عن الواقع تيب وركميد والبراء أصل يأدلوا لي هاي صحابة اللي قاطع القرآن كأنه كسوق قاطع أيا قابك وخريج جرتي taabiciintuna qaabkaasay uga qaateen quraadina sidaasay uga qaateen qaybtoodii taabiciinta ahaa iyo qaybtooda atbaacu taabiciin ay qodobkiisi dambeeyaba waa ariiq salaf waa ariiq nabi xuruufta iyo qiraa'aadka iyo adaha tajwiidiga kulli waa shay waxaa weeye tawqiifi ah oo laga qaatay weeye lagu qaatay biatharin wa mustanadin sharciyin in la kala qaado tajwiidka qur-aanka iyo qiraa'ada iyo xuruuftiisi la kala qaado waa shay dambe wadaan qoli aan aqoon badan diinka u lahayn ninkii u baahnaa ka akhriyo kutubta asalkee lagu talagalay iyo fanniga laga qoray marka ha muraajaceeyo waa helaya adilay leedahay nusuus bay leedahay saxiixaankay ku jirtaa qaabo nabigu u akhriyi jiray qur-aanka marka hawl saaran ma aha bidcada ay la wareegayaan caamada qaarkood iska ilaaliya allahu subxaana wa tacaala جزاك الله خير الجزاء سؤاشا أفري تبناد وحولي يا شيخ سائل كني وحن لا يا هاي صدح نانيس إيا مقع أيغا صحدا وحن قرسدي أفرحاس أما أنقبا أفرحاس مدولبا نانيسا كميدا بأي تقانا مركب ما الشرط با شيخانا إنا نهويني كستاما قبر كستانو شيخو مقع أيغا صحدا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. waxaad moodaa waa ninka artoola oo gudgod badan ninka asaga waxaa kaloo dhici karta dadkii yurub iyo galbeedka duruuf badan bay mareene ayadna inay jirto waa dhici kartaa shardi ma aha xaasku iyo cidda wax kugu meheranaysa iyo shuhuudda meherka waxaan shardiga inay yaqaanaan adiga muuqaalkaada iyo daatadaada shardi ah in magacaada saxda ay yaqaanaan shardi ma wadaada adkeeyo muujiya oo wax walba adkeeya laakiin muhiimaddu waxaa weeye in markay مخاطب حكومة مهرنا وكمرات كعاي مرات مهر كذا إيه إنك ولجا إيه أنت شو ده مش تشوكتبا ذات هذا يمقع لبوي قانا يكون قرنيا مقع عبودنا كون يهنقلو نانا يسهنقلو كي سحر عاي لبوي القاي هنقلو ذات هذا هيو اسم لبوي قانا وين لحلو هو اللي مركز هذا كذا تقانو يكسرعان يسوق فانسنتا وضدك إكاد تقانو مع الصومال أي قوة قانون أنت واقف ليه لكن محاورة سينا وحقا كالقرينينو هوني والله مقع عطرته وشيرته وهذا سان إنكارات يغفر لنا يسألون يمدين تاسعات بيوم أكسنتها الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء سواء الشني طبناد سائل كان يقول يا شيخنا سيدي الله جمعنا يا قال ذين عذاود لو موتشيو iyo in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan si ay u islaamaan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد سؤال شاسي وسؤال اسكاكوبا حقا نقول بلارا وكذا صوكو جوابتي أن صوكو نبحوي لا إله إلا الله محمد رسول الله إن اعتراضه وقالوا سيدا يكوكوهين لبتر كذا على عوض موجنا لبتر كذا على عوض موجنا قال كي إلهي كفري يا رسول كضفري كرتيس إن كتر هذا وكأجي هاي إن الآمن ست إلهي نكلي هاي كلي عبادة مذي هاي وحي قصة كيرنا باطل يبخت أوي هاي إن محمد رسول حق هاي إن الآمن سنت هاي إنه أجي هاي أو موجسة لبتر كذا وحي هاي التصريح بالعداوة الكافرين إذا يظهر العداوة قضب كلبات إن أذن باطل كودي يكفر ود أقيل بحنين حقا أذن تاغيرين نلبت الكود وما العداوة قدوك صدحات إن الكفر كودي باطل كودي ردين يسو وضع موجسان يسرد يسي لبت الكيسو عداوة للموجيوي إنت مركا نقصر ترنو قدوك أمهم سنة وعاوي إن أذن قاعد المصر مغيرنا وعداوة الموجستين وتولي يموالات أسكي لليس إن مسلمين قالوا haddaad doonto muslimiinta isku dhaxsanaatiin ururo kale ha noqdeen kuwaad ka soo horjeedo reer hebel oo
saqir cullow idinka dhexeeya iyo umradoox ha noqdeen waa inaadan oga helin muslim ruux sheeganaya oo muslim ah diinka aan ka bixin hadduu doono mubtadiba ha noqdee waa inaadan gaal oga helin dad gaal oga heliso diinkaad ka baxaysaa marka shahaateenkii wixii ilaah noo muujisato gaalnimadoodan u qiil bixinin xaqoodan la waabanin adoon weliya gacal ka dhiganin qodob afraad oo raaca xaggana ayaga aan weynaynin tacdiimkooda iyo buunbuunintooda iyo hawshaasi waxay keenaysaa in diinka aad ka baxdo xanafiya waxay dhaheen waman cadama kaafiran aw bajalahu kafar ninkii gaal weyneeya ama tabjiiriye boos iyo yasa iyo hawlo ka sii daaya iyadoon daruura aysan jirin waxay dhaheen waa kafar waa hawl adag marka hawlaha iska ilaali wixii intaa ka soo hadhay waxaa weeye in laisku khaldo ma aha ruuxa in loo ixsaanfalo iyo in la weyneeyo ama xaqi meel lagaga dhaco ama gaalnimada la taagaro ama loo qeyl bixiyo way kala duwan yihiin wuxuu qur-aanku ka hadlay ilaahay idinkama reebin baa la yidhi inaad u ixsaan fashaan laa yanhaakum allahu can alladina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim min allahi yuhibbu lmuqsitiin shaafici fi lum wuxuu yidhi ilaahay idinkama reebin can mabarati haaulaa وإنما نهاكم عن موالاة وتولي هؤلاء وليس البر والإحسان مما نهي عنه من الموالاة والنص الشافعي أو معناه في الأم وفي الرسالة إنها من جعلها في عفوا في أحكام القرآن مركا لبل اسكو مخلطو إن أدقاك إحسان فشو أما عاوسو انتو حلقة الله يا دم حسطو مساكينتو أهل عهدي هو بالإسكالي ذمة قال كحربي قال لما الله قال حربك يمدك معاهدك يمدك ذمه كل وين لما ينكر موالاة الكافرين وتوليهم وكفر مطلق مش يدون باكو يمات وعلى الله يوا من يحسن إليه ويبر ومن لا يحسن إليه ويبر أما العدل أصو في جميع الكافرين ظالم كنا ظلم الله ما أقوله أصو قالوا الدرس حتى إن عدالتك حتى ما أقوله مركع عدل وأصو في كل باب وحلق الله يوا بر إحسانك beri ixsaan iyo mucaamalada wanaagsan ee keenaysa ruuxa diinka inuu soo galo oo loo ixsaan falaa waxaa weeye waxaa iskale dadka ahludimaha ah ama haddaad u jeedo mucaamalada wanaagsan oo islaamka maxaasintiisii karamkiisii akhlaaqdiisii bilicdiisi inaad muujiso waa shay loo baahan yahay watuu nabigu isticmaalayo maxaa yeele gaalka aan dilaynay yaa markaan soo qabanna waxaa wanaagsan in la iska sii daayo la qoodiyo bal waa min addiin ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اسيرك ومعي وكافر حربي كافر حربي ونغنكر مركا احسانك iyo biriga iyo akhlaaqda islaamka ila muujiyo iyo in gaalnimo laga kacaligto oo la bunburiyo oo loo qeyl bixiyo way kala duwan yihiin laba baab oo islaam weeye midna waa ugu gaaloobaa midna waa wanaag diinka wax taray ilaahay raalli kaaga noqonayo wallahu subhanahu wa ta'ala جزاك الله خير الجزاء سؤاشا لحية طبناد سؤالك ما تمضمانيان سائل كان الشيخ علي هاي صحمية عرورة مسلمين تا عرورة قالوا إنيين شقالة أهل الجنة سعرورة قالوا أدي قاران حد التمييز أما عقلي يشان حقنا أي قال نمكو رالي نقدان إنان لحسابين بسم الله سؤال وباهن بحث دير وباهن لكن ممكن لصوكوه مسألة لو يغنى أطفال المشركين المذاهب تبادر كتير بأوستريسا سيد الصواب كان وحاوية مسألة ومسألة إجماع من نوع محل خلاف خلاصه حرط المسلمين هو أهل الجنة أهل الجنة ومركا مدول بنا علمه والدك يا أهلك وأخذ مينا يعني أهل الجنة وأخذ مينا يو هو سيني أهل الجنة أحمد يا غير كيف أجمع سوقوري خلافناكم الجرو خلاف كان سوقوري وخلافا معتبر عند أهل العلم وكل سنة حكبرا إنه سنين وذلك نصوص هي السنن أو خلافي خلاف مصر يسمىك عدم العلم بالدليل كان كذب الدليل كله قالوا لما اعتبار يصير راجحة صدقت باي صورة كشيء الجماعة من المتأخرين أحمد كمدي هاي صبر ويا إن يجمع قوريان يقول خلاف كوريا السابقة هاي الجري يكون اسمها عدم العلم هي عدم بلوغ الدين كل اسمها
أما تقصى بسن أطفال المشركين مذاهب بدل بأكو جلسة راجعنا أطفال المشركين من أهل الجنيين من أهل الجنيين إن خدم يأديك أهل الجنة وغيرها جماعة من السلف بعقبة وبعض الصحابة كمدي أنس كمدي هاي هي تابعين كلية ولا دكالبا قيب تقصى بسن هذي قال لما كنا عام الماء سبق قالك مميز كولي قان قارين سبق مميز قال بونكم ايه الماء انه مؤمن مسلم كا يمدك كافر كي ابيك راعي الدين كبا انتو سنقان قارين لكن وحكى سوعي عقل ويجي تمييز هذو قال لما كنا انه قالوا براجح والمذهب جمهور العلماء هو لكن إله وقال قال لما ادري كرو والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخنا جزاك الله خير. سؤاشا سيدي طبناد سائل كان بحولي سؤاشا تطبي طبناد عفوا سائل كان بحولي يا شيخ خويدي بعد ما تي حولا أينا كتكتي عرور بدن نواي كتكتي هو أن كان قارين حولا أي كتكتينا ما بدنا أنا وحانا هاي عرددي حولها نوانو باهانا هي ميان قادن كريا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سؤال جاوبته حاوي حلو ودحل حلو دحلوي هو أما عرض النقو أما قرض بيس النقو أما المرح النقو حاوي وحي كتبتي هيا رضا بدنا ودحل النقنية ما نقال كرتيد إذا دحل أنت أيضا أما ورصدي كله قررت يسمكوا عفين أبها وراها عيد قرر حليدو إذا دحل كذا كل قارن لها وكوا عفين ما قارن كرت هدي أنا دحل ما يسمكوا عفين حرام بكاين والله أعلم. سؤاشا سيدي تبناد سائل كان الشيخ حولي يسقنا وما هي حكمك أضياشا حيرك وحكو دقا maxaase inooga aadan waxyaabaha ay diyada ku sheegaan ee bacmadowga ah ma la bixin karaase bacmadow ma fahmin yani waxba ku salaysnayn baan u qaatay inuu yahay bismillah suuqa madow bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd odayada oday dhaqmeedka loo yaqaano ee xeerka iyo xeer iyo qaanuun aan qorayn oo xifsan yihiin dusha ka hayaan wax ku maamula waxay la mid yihiin baarlamaanka kuraasta iyo xafiisyada oo fadhiistay dowladaha maamulaya xukmi wax u dhacay ma jiro midkana mid dastuur qoran oo kitaabka ay khilaafsan buu wax ku maamulaa qaybana asagu dejiya midkana mid uu xifsan yahay oo la kala gooyo oo ka uu socday buu wax ku maamulaa midna waa maxfuud midna waa mudawan mastuur ah فرق كلام دحية ما وجهه مركوا اسكو حكم اسكو مبر مريا قيب تكسر سن مكتب بعمدوه عنهم لنا يا بريان دم بوحاول يمبا العقل وسوق هذا العقل قدر يا بعمدوه المسؤول يا مركز هذون ترسنين انت هذا وقع وحي ان اول ان هلي ويحكي لنا دوا كافات عمرنا ولا سيدادا انه سدا كولا لغيابا سدا ضيت هاي مكتا أصل كيدو دواني صوبر روح عسكري دادكي لقد لي أحد كي مسلم كان لقد لي بعسكري دادكاسي مركا دي أيوه هاي صلحي وقاعدة وي صلحي عن ملزم هاي صلحي ملزم كقانون بس بدلية كفر ونقرية وإن خيار وكفرية هاي مكتا بقول يلواتن سغاشن كونتون لحدن waxay ku qancaan dadkii dhiigga lahaa oon la qasbin xaggana xeer horoo jiro reebel aan la ilzaamin way bannaan tahay axaadiis baana ku timid kaana waa laga qayb qaadan karaa hadduu laakiin yahay kan la is ilzaaminayo oo reebel wixii rag waxaa u xeera 40 wixii dumar waxaa u xeera 20 14 neef noqolyaaba la sheegay inay gaarsiiyeen midka asaga waa qaanuun lagama qayb qaadan karo waa diin la-aan haddii أو حكا قوان كاتنا كقبو أو حكا بدل هدي كلا كقيب قادنين اللهم إن أتكبا قيسو دباتوين أو بربر كنتو دي بدن كداتا إلي بيشي كاتماتو أو مركار المسلمين تاكري إسبابين إلى دي قدب باريسو
marka ayada waad ka qayb qaadan kartaa qaraanka yarkee magta ayada laakiin fi xaddi daatihi inuu diin la-aantaa yahay waa inaad ogaato markaad ka qayb qaadanna dhiig muslim oo soo socdo badbaadi mooyeene ugama qayb qaadan kartid taageero hawshaan ah laanna waa lagu gaaloobayaa wallahu subxaanahu watacaala saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waa su-aasha 19aade waxaan ahay gabar dhalinyaro ah oo dimuquraadiyada iyo baarlamaaniyiinta ka soo horjeeda gaalnimona u aragta sheekh dhibaato miyay igu tahay nin u arka normal ama agtiisa aysan wax dhiba ka lahayn in aan guursado mase igu xidhmaanin noocaasi waa su-aal dhibada weeye go-aankeeda waxaa way ninkaa guursani hadaad guursatana meelkaada ma asixin hadduu ku qabana iskaga carar hadda iskaga carar maxaa yeelay meel kuu qaban maayo ninka waxaa aaminsanaya garanaya aduguna aad ka aaminsata inuu gaalnimo ku jiro si haddii uu say kugu noqon aduguna aad arad ugu noqon waa arrin la yaab leh hawshaasi ka fogow ninkaa kuma geyo geyaankaada ma aha kuwii ku geyi jiray raadso laakiin ka asaga iskaga fogow allah subxaanahu watacaala jazaak allah khayr jazaa su-aasha inoogu dambeysa oo ah su-aasha 20aad xalqadeenna maanta wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani sheekh haddii aniga oo weyse qaba aan taabto xubinkayga taranka aniga oon wax dan a ka lahayn weysada ma iga jabaysaa بسم الله هذا الله فهم السؤال طبعا محضر كره المحط طالته هسه توعوي قعد ضدك على بعض هذا سؤال كيس كفرية أو معوز تحرمية أو منهو كلا وصل قعدت كعقد على سيد الراجل أو سيد ما تشبي هدي لك القصد طالته دريم بيان كره عن يطمعي وقصد طالته ويسيد ويكاتبيسه المص بقصد وناقض الوضوء المص بلا قصد وغير ناقض الوضوء سواء والله سبحانه وتعالى جزاك الله خير الجزاء intaas ayuu barnaamijkeenii inoogu egyahay maanta sidaa iyo waxaan ugu dhaafaynaa salaamu ullaahi calaykum iyo kulanti dambe wasalaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu